allehey alla waaye magacey muslim waaye gaashaankey geri waaye gamuunkey mariid waaye warankey magefaan waaye warubniyow antum hub hoba haysata mayha marka dhahfadheesi kushidhamnoo difaacdo walaka jara waladeerkani matanu la saanka gaaray aroodaani waxaa maqli jiray allehey ka allah oo day ka yaasiin ani kuma aroosi kara iimaankaa sugo saasaa maqli jiray saas u qaadaa waaba ku dheeloyaa gabayge guri dhagaxa waa dumi karaa gabaga gooyoobe ma ihinoohe war ninkaani baroorta uu ku bilaabay waa dagaal hurine say wax u jiraan ayaantaanna wararku waa badnaayeene war aanel madiidiba beryaaguun leh unalqabateentahan alka qaado unaqabateentahan alka qaado taasa dagaal hurisan haynamay calaa kulli xaal qaylo warma kama tunmaan ooyinta orgaga ka weyna horaa loo yidhi warnimayow run haddii la rabo soomaaliya waddo waxay ku socotay qori isku dhiibahoo ninba maalin kursiga ka dego xalka keliyahoo ay haysatana kaasuu ahaa waddadaa haddii lagala leexdana warka dabrida la huri ma arooda gamuuleydaa waxay dhihi jiraan markay rabaan inay kabdhoodaan kabtaa bilato abbaroorato bari ha u dhacdo gamuunka rid ay dhihi jireen warna miya unan dadnabadeeda haynay ha oo laaduunkeegna ninka baaqu haaya may hayti war aniga waxaan idin leeyahay birigay bariirta fuusho buurow kaaga baaqa maayo aryaadhaha guddoomiye hore gobolka banaadir caddagaaba wuxuu yidhi golaha deegaanka ay doortay miyuu yidhi war lankaysan sheegasan lanki iidan shay dharka jaaliga enka jiri ardaysa fasalka afaraad dhikadaas haanhaayeen ma aha waa isa soo sharaxa miyuu yidhi wargaabow garee safiirka maraykanka soo maahan xaa gobolka banaadir ka galay war ra'iisal wasaarihii hore nuur cadde itaaliyow jooga aryaadhaha warka iga dhex gelinaya caddagaaba wuxuu yidhi shacabka soomaaliyeed cabsiinaa lagu wadaa ha laga joojiyou yidhi wuxuuna yidhi cali dheeroo warramaaya raadiyo muqdishow laga soo deeyey nisana iyo koo shabaab qaar ka mida ammaanayaanay soo qoreen waxaasna shacbigaa lagu cabsi gelihaahe ha la joojiyou yidhi warna miyaw mayleeray ol anti guulguuliskoogoyta gandaalismakoogoyasa maana aynana guulguulne galnag meeliyo galaanka galaan eh war cabdigaawow hadhow ayuu dhihi doonaa waddada laga xirtay dhikaarkeena layidhaha aryaadhaha warka madeeyaan ku xusuusnay hadda ka hor nimaa yidhi cirkaasaan soo dumiyaa haddaan cayaarta layga dhaafo mid agtiisa rorgayaa dhexda qadhoob uga yidhi aasoo yidhi cirka soo dey mugaasoo yidhi intaad ka gele maxaad ka gashaan ka gele ow asigina yidhi cirow nabad dhulow nabad aan maqli jiray waraadhaha waddaniyiintaa la xigtaaye qarandumis warkiisa ku mashquulinina dadweynihii qumanaayo qiradii iyo dhiiggii xaggee baad ku qariseen quruniya afminshaar waydinku qarsoon yihiin waxna soomaad qabataan waxna soomaad qabataan aan maqli jira horta beriga heestaas la qaadayaan ugu waa joogayo adduunka waxaa rogay isticmaar iyo afminshaar haddana waxaa rogaya qarandumis iyo mucaarad afminshaar umuurihiisa wada ogaada afminshaar umuurihiisa wada ogaada abdulo wali kale leeray elentuugna waa tuug afminshaarna waa tuug wareedhaha xoogagii waddaniyiinta miyaa geedkii kalamaan maanta qabsaday kaararkooda bar oo ma sidan ay wax ku dooran rabaan calaa kulli haal hoogaga waddaniyiinta doorashadii oo hawadaan tii galmudug iyonay tii koonfur galbeedan inka filan geed hooba sidaas soomaali kuwada roogasa wal aragadoona raka aadaa buriileta yeleeri hogoyto la fiiriye yeeri reed lamada kun iyo labaatan iyo kow tal deeroy warmada isaaqow maanta waa hanjabe goormuu beer lafa yeesha war aana hele dhajigo hoblada daartufe warmaday afaarihiisa ka baxa oo masuura fakada u malaynaya war talyaani wuxuu yidhaahdaa aqua basato non si ritorno waxaani waa ismanjaato niman yow war ha ku daalinina waxaa la yidhi runtii dhimatay oo damacriyo hadalla raadbeeliye ra'yul caamkii rabitaan qofeed lagaga roonaaye baddu riintay buuruhu ruxmoo qaran raggiis waaye reja samirtay beenna isku rogo wixii aad raacdeene awal hore racfaan iyo ambiil waanigii ridaye mar hadday shuruucdii rishwadu ruugaga u siibtay ha raadsado xaqiisii shacbigu waa sidaan rabay yeera yam
nyaxaasku qaadyay yam taasi cambaroy taas waxaa ku mahmaahay allaha u naxariistee jenaraal xuseen kulmiye afrax ma jenaraal ha sheeginoo kaluu ahaa war heestoo hata ka hor mayba ka dheega jiray yahaas maa yaraan galaaye wuxuu rabou yeeli karaaye yeeriyeeriyam yahaas ku qaadiyam war tanna ma xuseen kulmiye sameeyey war markii xaaja adkaato xigmad baa la rabaaye in xogteeda akhbaarka iyo xirfaddeeda aqoonta iyo murqaheeda iyo xoogga dhammaan laysugu xoorsho sharci loogu xadeeyey ku xoroobi kartaa taas hagiiguway laakiin beryaawu ma lahaayoba axmed waranlow yaa ku haysto lagaa xorayha war xujo ma falanta xaaja falantaa la yidhi anugu waxaan la yaabanahay sanadguurada nabad iyo nolol iyo sanadguurada kulmiye waxa isku soo beegay ninsuno nambar 8 nambar 9 lasha istare la legge agwale per tutto war hankoolka warjeeyanan walba ay hasuusii kulmiye idaacadda lileeye saddex haraf wiinga koranka yaali kay n yahayti beryaago hatlaha dhaafay kayda damidi n ma ingoradaasan nabad in nolol ma hayne ka daranti warmada isaaqow dulmiga maanta geedka la timid ma dul yaraa kuu soo dhiibi niman yahow dul yar ma duqooba miya war dulyar ma xishoodo waa kii cambaroo 80 jir ceejiye ma naga dhaaftaan warkiis war ma haysiina kalamaan waa laga cawday kuuriyada waqooyi kuuriyada koonfur iyo Boortaqiiska intaba waxay dhaheen waana la ku sheegaa cid wax noo sheegtana ma afnaqaan ma afki kalamaana nuclear ugu jawaabaynaa hay dhaheen markayna leeyihiin afka kalamaan ma naqaan ayagaba afkooda waa naqaano war madawiinaha kuuriyada waqooyi kii jeegada hiirinaayi kaas ani abtirshayn had gorade walkala isku dhaafa mayleere kasaasana joomkiin jaamkiin yaleere war ma haysiina gobolka gado ma roobaa ka daay ma lagu kala guuray ma axmed madoobaa yimid janan maa la soo qabtay war ma xildig baa u soo socda shabaabkii walku qaaday war heedhahan nugu degdegnina dhegaysta dawladdu waxa la waxay ciidan heli kartay ayay isugu geysay yaa galmudugay dawladdu ciidan ku daadguray jirtay ma laga soo celshay war haani baydhaw hata ka hor lijeeyey walhanagay yaahu maday isaaqow adna hantiyaad bilowda miya war haanta iyo haruubka waa idinku kala go'ana naga dhegaysta warka waxaa la yidhi degmooyin weligood aan ciidan dawladeed arag ayaa ku ooyey markay arkeen ciidamadii dawladda gobolka gada la geeyey maamulka jubbalandna waxay yidhaahdeen ciidamadaa dawladdu soo daadguraynaysaa dagaal ay ka horinayaan jubbaland war ciidan dagaal waa shaqadiise yaa u diyaarsanay la dagaalayaanay dhaheen warwarkaan naga dhex gelinine dawladdu waxay tidhi ciidankaani jubbada dhexay ka xoraynayaan shabaab anna waxaan ku riyooday degmada bu'aale oo ah caasimadda jubbaland oo oomaar gareen lagu dooranayo warnimiya umayleeray masaar madi mooradii elakooda moodada deriskarilanku oode nabadii nolol jidkun soddonka deeri waysanta bu'aale may kuwaydiidi anna waxaan ku riyooday axmed madoobe bu'aale caasimadaba ka bedelay intaan la xorayn timirtii horeba debloowa aryadhaha war ma haysiina dawladdu waxay muqdisho isugu keentay odayaashii dhaqanka puntland iyo odayaashii dhaqanka dawlad deegaanka soomaali galbeed ma xildhibaanaday soo xul rabaan ma dib u heshiisiinay samay rabaan arro war meeyeen dhaqankii somalilan war nimantii oo meel walba liimidhinaawa ka tasalyohaana liimadii oo bohasiindeerna may ku weelasan aryadhaha warkaan ha naga dhex gelinee waxaan idin idhi anigu waxaan ku riyoodhay odayaashaanoo la leeyahay axmed madoobe iyo deni wax ka qabdha amba nugu fasax waa ku fasaxantihiin haddaa ragtihiin u taga maxay u dhihi waayeen ikoro aan mu kala soo riyoodhe warka odayaasha mugaasaan kuu sheegaahe war odayaasha waxaa casho u sameeyey ra'iisul wasaare khayre war ma haysiina waxaa la yidhi wasaaradda caafimaadka waraaqda ay ka soo saartay isbitaalka yaardameyle madaxda sare waxba kama ogaa la yidhi waxayna ku kooban tahaa la yidhi wasiirka iyo agaasimihiisa marka waxaan la yaabanahay waxaan xafiiska ra'iisul wasaaruhu ogeyn wasiirka wadaa uu xaguu geynaya war gabadhu waa qurba jooga turkiga lama taabta maxaa loo dhihi waayey war ma haysiina gudoomiyaha gobolka banaadir Cumar Finish dhagaxyaalkii jidla kiirinayaan gaade waa eray muqdisho maqaam ha yeelata ma afkiisa ka soo yeertay 8 febraayo ha loo diyaar garooba ma u yiri war Cumar Finish 8 maarsa kama hadline warka naga suga war 8 febraayo hoobasun ka hadalna seenabadii nolol ka haade war 18 May ma soo hadal qaaday 12 Abriil Cumar Finish wiligiis ma xusin maalintii guul wadayaasha 19 Agoostana afkiisa kama maqal wiligay war 14 Oktoobar dadkii dhan markay ooyeen
cumar finish wuxuu yidhi ooyimayna waa arsanayna war xoogga wadaniyiintii cumar finish waa isfahmeen war dad maranaa tihiine guddoomiyuhu jid cusub dhisayaa ina dhegaysta dhagaxdii lagu xidhi lahaa ma diyaarshi argoormow injineer naqday nagashibdhadani waa seetaan la yidhi warnamiyo afgoy madilen safar aw saharaha galbeeda lah ku wareegsadad lahay warkaas may ka jara war abwaangaariyo wuxuu yidhi dawga aada boorame kuma geeyo daafeed war walla weyney daafeed xaggay ku taalla booramiin dhowto horta xamar iyo muqdisho meeqa waddaa u dhexaysa aryadhaha hargeysa iyo maroodi jeex inta masaafo u dhexaysa ma taqaaniin warnamiyo madawiine lafta gareen baaburkii baydhowlaha ka kor nambar 4 alinka degi doona dhaxdowna huraya siisun lahay may ka dhii war gudoomiyaha golaha shacabka soo lagama sugan waa mas-uul soo diintiisa war baarlamaanka waa la fasaxniyo waa maran tahay warada saddexdeedii xisbi ee Soomaaliland way isku maran yihiin oo umay kala foqin waryaal heedhay senator Mudusuud wuxuu yidhi waxaan baarlamaan ee ummadda Allah ka horwado warnimada war ma haysiine goodaha barre iyo faroole midda kala raacday waa la yaabay isdhar baanyoyna war dharbaaxyaa la qaatay goodaha wuxuu yidhi haddii faroole waxbarasho qiimaynayo ilmihiisaa laga arki lahaa war nabadoonnada ka leexday Hirshabeelle iyo Puntland ay ka soo kala jeedaan goodaha barre markuu warkaa sheegayo Turkigu joogay faroolena isla markiiba imaaraadku u orday lamadaba kurburooga humaynin wareeriyaan reed warada dadku way kala guranayaan cagta u dhiga aryadhaha buuka xafka haddoo buuxsaday booska noogama tago xawnuga aqabaha waliya albaabka xabsigaad garaacaysa war ha iska barya qaadee iska dhaaf wareesir doonka ku leehda lankun war axmed buur guluusadii waa iska qarqarxayaan war jumhuuriyadda ictiraafkeeda soo siiyaniyow waryaada war sharciga ilaansoo dalka u shaqeey war maxaa ari waa saxdeeya badarku haydiin baxe